السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta waa 4/19 bisha 2 ee February sanadka 2025. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago maxkamadeyntii uga socotay haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Feeding Our Future iyo Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa oo toddobaadkii labaad gashay. Haddaba shalay markii maxkamaddu ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa dacwadoogayaasha ay garsooraha ku wargeliyeen in mid ka mid ah eedeysanayaasha uu isku dayay in uu la hadlo ama u hanjabo mid ka mid ah dadkii marqaatiyaasha ahaa. Haddaba arrintaasi garsooruhu maxay ka tiri, maxayse mutaysan karaan haddii arrimahaasi lagu helo dadkan eedeysanayaasha waan idinla wadaagaya. Maamulka Trump oo hakad geliyay dhammaanba applicationadii u xareysnaa qaar ka mid ah dadkii siyaasadihii Biden ku yimid wadanka ee wadamada ay ka mid yihiin Ukraine iyo wadamada Latin America iyo bartamaha America qaarkood ka yimid applicationadoodii dhammaanba maamulka Trump uu hakiyay. Arrintaasi maxay tahayna sidoo kale waan idinla wadaagaya. balse marka hore soo ayay gashay maxkamadda magaalada Minneapolis uga socota haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Feeding Our Future ee Amy Back iyo waliba Salim Saciid oo isaguna milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa oo labaduba lagu haysto inay qayb ka ahaayeen musuqmaasuqa lacagtii 250 milyan ahayd. Toddobaadkii hore waa tii soo gabagabowday, shalay ayaa toddobaadka labaad uu dib u bilowday. Haddaba arrin cusub ayaa ka soo kordhay shalay markii maxkamaddu ay soo gabagabowday oo marqaatiyaashii la dhageystay kadib ayaa dacwadoogayaashu waxay garsooraha ku wargeliyeen in qaar ka mid ah eedeysanayaasha maxkamadda saaran ay isku dayeen inay u hanjabaan qaar ka mid ah dadka horey dembigooda u qirtay oo hadda diyaar u ah in dowladda ay caawiyaan isla markaana ay ku marqaati furaan eedeysanayaasha. Waxaa garsooraha ay dacwadoogayaashu ay ku wargeliyeen arrintan waxaana ay sheegeen in sidoo uu sheegay ku-xigeenka xeerlaaliyaha oo dacwadan dhan mas'uulka ka ah oo la yiraahdo Joe Thompson ayaa waxa uu sheegay in la isku dayay in loo hanjabo amaba sidoo kalena lala hadlo mid ka mid ah marqaatiyaasha horey dembigooda u qirtay isla markaana gudaha maxkamadda hallwayga maxkamadda lagu approach kareeyay oo loo yimid. Wararka qaar waxay sheegayaan qofka isku dayay eedeysanaha inuu yahay Salim Saciid, wararka qaarna waxay sheegayaan in qof ka mid ah eheladiisa uu yiri nakeen musqusha nagay. lama oga qofkan waxa uu doonayay inuu kala hadlo. Waxa dambi ah in qof marqaati ah aad la hadasho ama aad u hanjabto ama sidoo kale aad isku daydo inaad laaluusho, dhammaanba waxyaabahaasi oo idil waa dambi. Marka garsooraha ayaa arrintaasi ay dacwadoogayaashu ay ku wargeliyeen, waxaana sidoo kale garsooruhu isla markiiba amar ay ku bixisay arrintaasi in faahfaahin dheeraada laga soo siiyo. wararku waxay sheegayaan in Salim Saciid telefonkiisii laga qaaday si baaritaan loogu sameeyo, waxaana garsooruhu sidoo kale ay amartay in eedeysanayaashu ay fariistaan meel ka fog xeerbeegtida because arrintii hore laaluushkii ayaa la ogaa bishii June oo mid ka mid ah xeerbeegtida la isku dayay 240,000 in gurigeeda loogu geeyo, booliska ay soo wacday 5 qofna arrintaasi loo soo qabto, 2 ka mid ah dembigooda ay qirteen, 3 walaalahana aysan weli dembigooda qiran oo ay xiran yihiin. marka arrintan waxa la leeyahay waa dambi kale haddii lagu helo ay arrintan ay ku noqon karto dambi kale eedeysanayaashan. Joe Thompson waxa uu garsooraha u sheegay in uu rumaysan yahay in eedeysanahan Salim Saciid uu la xiriirayay qaar ka mid ah dadka la eedeysan isla markaana sidoo kalena ay ogaanayeen xilliga ay maxkamadda imaanayaan dadka marqaatiyaasha ay doonayaan inay sii ogaadaan marqaatigee maanta imaanaya midkee berri imaanaya midkeesa xilliga saas inay u ogaadaan. sidoo kale garsoore Nancy Brazel ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in arrintan wax laga qaban doono, waxaana Salim Saciid iyo Amy Back lagu amray in aysan iyaga maadaama eedeysanayaal ay yihiin aysan xiriiri karin, sidoo kalena waxa aysan la xiriiri karin dadka marqaatiyaasha oo aysan waxeeda la sameyn karin. haddii arrintaasi lagu helo waxa la yiri waxaad ku mutaysan kartaan xabsi. hadda Amy Back iyo Salim Saciid gurigooda ayay aadaan, subaxdiina maxkamadda ayay imaadaan. marka haddii arrintan lagu helo waxay noqonaysaa in xabsi lagu xiro, subaxdiina maxkamadda la keeno, markay dhamaatana xabsiga lagu celiyo, sida arrintii markii la isku dayay xeerbeegtida in la laaluusho ku dhacday dadkii eedeysanayaasha oo telefonadii laga qaatay isla markiina la xiray. marka arrintaasi ayaa shalay ka soo baxday maxkamadda, waxaana sidoo kalena markii maxkamaddu ay dhamaatay kadib garsoore Nancy Brazel waxa ay kulan la yeelatay
ciidamada marshaliska oo ilaaliya dadka eedeysanayaasha oo laga yaabo xitaa inay xiraan markii loo baahdo in la xiro dacwada ogayaasha iyo sidoo kalena qareenka marqaatigii la isku dayay in loo hanjabo ama lala hadlo ayay kulan la yeelatay kulankaasi wixii ka soo baxay iyo arintan eedeynta ah oo la leeyahay mid kamid ah eedeysanayaasha ayaa wuxuu isku dayay inuu marqaati u hanjabo amaba sidoo kale uu la hadlo arintaasi waa eedeyn kale oo la soo gudboonaatay dadkii dacwadu ay u socotay iyadoo shalayna marqaatiyaal kale la dhageystay wararku waxay sheegayaan in Salim Saciid oo la eedeysan Amy Bag maxkamadana ay labadooda u socoto uu ku casuumay maxkamadda qaar ka mid ah eedeysanayaasha si ay uga soo qayb galaan qaybo ka mid ah maxkamadda taasi oo lagu tilmaamay inay tahay musuqmaasuq la xiriira habsami u socodka maxkamadda marka inuu ku casuumo ma aysan ahayn sidoo kalena xeerlaaliyaha ku-xigeenka xeerlaaliyaha oo dacwadan hogaaminayo oo la yiraahdo Joe Thompson ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Cabdinaasir Abshir oo isagu u ballansan maxkamadiisa ay ballansan tahay bisha 4 ee Abriil uu isku dayay inuu la hadlo Sharma Arka Jaamac oo kamid ah mid kamid ah marqaatiyaasha isaguna maxkamadda inuu ku marqaati furo oo dambigiisa horay u qirtay 2 bilood ka hor in maxkamadda hallwaygeeda uu kula kulmay isla markaana uu isku dayay in uu la hadlo mararka qaar xitaa uu yiri nakeen dhinaca musqusha sida darteed ayaa waxa la sheegay in Sharma Arka arintaasi uu ku wargeliyay qareenkiisuna uu ku wargeliyay xeerlaaliyaha xafiiska xeerlaaliyaha Joe Thompson sidaasina xeerlaaliyuhu markaasi kadib uu garsooraha maxkamadda uu ku wargeliyay xeerlaaliyaha ayaa waxa uu sheegay in Cabdinaasir Abshir iyo walaalkiis Asad Abshir ay maxkamadda soo galeen iyagoo qaylinaya kadib markii shalay maxkamadda qadadii laga soo laabtay muddo kooban ayaa waxa ay fariisteen meel u dhow xeer beegtida ayay fariisteen markaasi kadib ayaa waxa la sheegayaa in ay baxeen labadan wiil oo walaalaha ah ee Cabdinaasir iyo waliba Asad ayaa waxa lagu eedeynayaa in maqaaxi ay ku lahaayeen Mankato ay sheegteen inay ku quudiyeen caruur gaaraysa 1.6 milyan isla markaana ay heleen 5.2 milyan oo lacagtii 250 milyan ahayd ee Feeding Our Future marka arintaasi ayaa jirto waxa la leeyahay marqaatigaasi ayuu isku dayeen labadan wiil oo walaalaha gaar ahaan Cabdinaasir Abshir ayaa isku dayay in uu la hadlo waana dambi qofku inuu qof marqaati u ballansan oo marqaati fur u ballansan in uu la hadlo arintaasina waxa la filayaa sidoo kalena in baaritaan dheeri ah lagu sii sameeyo maxkamadda muddo bil ah ayay socon doontaa bartamaha bisha soo socota ee March ayaa la filayaa inay soo gabagabowdo markaas kadib xeerbeegtida ayaa go'aan ka gaari doona labadan qof ee maxkamadda saaran inay dambi leeyihiin iyo in kale laakiin marqaatiyaal fara badan ayaa la soo bandhigayaa oo maxkamadda la horkeenaya marka arintaasi ayaa ka soo korodhay kiiskii maxkamadda ee ka socday magaalada Minneapolis ee Feeding Our Future lacagtii 250 milyan ahayd marka waxa dambi ah in qof marqaati ah qofku uu xiriir la sameeyo ama uu la hadlo ama uu u hanjabo arimahaasi oo idil waa dambi kale oo hadii lagu helo eedeysanayaashan ay ku noqon karto in aanba loo ogolaan inay guryahooda aadaan oo xabsi la geeyo maxkamadana la keeno markay u dhamaatana laga celiyo inta ay maxkamaddu ay soconayso waxyaabaha maanta ka soo kordha arintaasi iyadoo garsooruhu ay dalbatay in arintaasi baaritaan lagu soo sameeyo faahfaahin dheeraadana laga soo siiyay sida u dhacday yaa sameeyay iyo sidoo kalena maxaa ay arinta qaabkay u dhacday ayaa sidoo kale la sugayaa in ay faahfaahin dheeraada maanta iyo wixii ka dambeeyay ay soo bixi doonaan dhinaca kale maamulka Trump maalin kasto siyaasado cusub iyo ka soo kordhaya waxyaabo cusub ayay soo saarayaan hadda maamulka Trump waxa uu joojiyay gabi ahaanba waqti aan la cayimin dhamaanba applicationadii ama codsiyadii dhinaca immigrationka oo ay xareeyeen qaar kamid ah dadka soo galootiga xilligii Biden wadanka soo galay oo siyaasado kala duwan ku soo galay dadkaas waxay ka yimaadeen wadamada Latin America ama Ukraine waxana loogu ogolaaday wadanka siyaasado kala duwan oo maamulkii Biden oo dadkaas ugu ogolaaday inay wadanka ay ku soo galaan marka Trump waxa uu yiri sabab la xiriira musuqmaasuq oo dadkaas ay wadanka ku soo galeen iyo inay qatar ku yihiin ammaanka qaranka ama ammaanka dadweynaha ee wadanka Mareykanka ayaan u hakinay waqti aan la cayimin dadkaas waxay isugu jiraan dadka TPS ka xareystay dadka asylum-ka ah iyo sidoo kalena dadka iyagu green card ahaan wadankan ku yimid oo qaab green card ah wadankan ku yimid oo green card kooda sugayay inuu u soo baxo marka dadka ilaa hadda TPS inta xareystay u soo baxday kuma jiraan laakiin hadii ay u xareysan tahay waa ay ku jiraan maamulka Trump hadda waxa laga yaabaa dadka TPS ka haysto xitaa Soomaalida ay ku jirto marka TPS taas ay ka dhacdo sanadka 2026 in aan loo cusboonaysiinin oo la yiraahdo dadkan waa la tarxiilaya sida hadda dadka Venezuela ka yimid ay ku sameeyeen maamulka Trump oo qaarkood ay ka dhacday u cusboonaysiin deedan kuwa ay ka dhacay rabtana loo sheegay inaan loo cusboonaysiinin
kaarka shaqada hadduu ka dhacana sidoo kale aan loo cusboonaysiinayn. laakiin arrintan hakadka hadda dadka Soomaalida ma saameynayso, waxay saameynaysaa dadka ka yimid wadanka Ukraine oo iyagoo barnaamijkii markay Ruushka iyo Ukraine ay istagaaleen barnaamijkii Pearl programka ku yimid. dadkaas waxa la leeyahay si dhab ah looma baarin, waxaana laga cabsi qabaa inay qatar ku yihiin ammaanka qaranka iyo ammaanka dadweynaha. marka dadkaasi Pearl ayay ku yimaadeen, humanitarian Pearl ayay sidoo kale ku yimaadeen oo cafis dhinaca bini'aadanimada ah. waxaa dadkaasi ka mid ah marka dadka Ukraine ka yimid oo ilaa 240,000 gaaraya iyo 530,000 oo qof oo ka kala yimid wadamada Cuba, Haiti, Venezuela iyo Nicaragua. dadkaas waxay ku imaanayeen dad wadankan citizen ah oo iyaga ehel ah ayaa sponsor u xareynaya oo kafaalo qaaday. markaas kadib qaabkaasi ayay ku imaanayeen. dadka Ukrainiyaankan dadka Mareykanka ayaa iyagana u xareeyay sponsor oo kafaalo qaaday. marka waxay leeyihiin arrintaasi dib ayaan ugu laabanaynaa, dhammaanba applicationadaasi waa hakinay muddo aan la cayimin ilaa iyo baaritaankeena aan ku soo sameynayno. waxaa sidoo kale ku jira dad iyaguna qayb saddexaad ah oo ka yimid wadamada Colombia, Ecuador, Haiti, Cuba oo iyaguna qaab green card ahaan wadankan ku yimid oo dadkoodu ay sponsor gareeyeen green cardkiina xareystay oo sugayay. dhammaanba dadkaasi applicationadoodii hakad ayaa la geliyey oo ilaa iyo waxay noqonaysaa amar dambe oo baaritaan lagu soo sameynayo, maadaama ay sheegeen maamulka Biden in uusan si wanaagsan dadkaasi u baarin, in baaritaan lagu soo sameynayo applicationadoodana hakad la geliyey. horey barnaamijyadan oo idil oo Biden oo dadka ugu ogolaanaya wadamadaasi kala duwan ka imaanaya wadanka Mareykanka inay ku imaadaan, Trump waa uu joojiyey. waxaa la leeyahay waraaq ku taariikhaysan 14 bishan February ayuu ku joojiyey. waxa uu yiri barnaamijyadaasi hadda kadib laguma imaan karo. kuwii wadanka yimid oo joogay oo Latin America iyo Ukraine ka yimid oo dadka Mareykanka ay sponsor gareeyeen ama ahaadaan dad ehelkooda ama dad muwaadiniin Mareykan ha ahaadaan, gabi ahaanba applicationadoodii hakad ayaa la geliyey oo lama sii wadayo, lama process gareynayo ilaa iyo baaritaan ay dowladdu ay ku sameynayso. waaxda dowladda Mareykanka u qaabilsan immigrationka USCIS iyo wasaaradda amniga gudaha ayaana arrintaasi ku mashquulsan. waan arki doonaa sidoo kalena waxyaabaha ka soo kordha arrintaasi. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.